السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaada janaalkayga Firdawsi isku filan waa mar kale inuu fiidiyo baliis haddii ay tahay markii kuugu horeysay oo janaalka soo booqato waxaan ka codsanay inaad iskarab garayso asxaabtaada kale la sii wadaagto oo ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan asxaabay soo dhawaada aad iyo aad ayaa idin soo dhaweynaya alxamdulilah ilaahay mahad oo dhan u sugnaatay isoo celiyey mar kale aan caafimaad qabo waxaan rajaynayaa idinkana inaa caafimaad qabtiin inta xanuunsan alla subxaana watacaala allah caafiyo inta dhimatana ilaahay subxaana watacaala allah u naxariisto inta safarka alla subxaana watacaala allah u fududeeyo qof walba oo muraad lana muraadkiisa alla subxaana watacaala allah u sahlo isku soo noqod wanaagsan ayaa idin leeyahay asxaabey waxaan idin wadaa fiidiyoga maasha allah gabdhaha uurka leh oo rabo inay masar ku dhalaan oo rabin dhulkaale inay u noqdaan inay ka faa'iidaystaan insha allahu tacaala hadduu ilaahay yiraahdo istaalkan aan tagnay waxaa la Queen Royal Hospital tagamuc khaamis ayuu ku yaalaa gabar ayaa u raacay ilaahay subxaana watacaala xamligeeda xamli fudud allah uga dhigo salaamo ilaahay subxaana watacaala iyadii beebigeeda ayagoo caafimaad qabana korka allah isku soo saaro igu soo duceeya biidnillaahi tacaala because asxaabta Firdawsi isku filan oo dhan waa walaalay qaaliya kulli madaxay saaran yihiin ilaahay idin barakeeyo kuwa hore u joogi jiray kuwa hadda cusub iyo kuwa nagu soo biiri doonaba soo dhawaada ayaa idin leeyahay istaalka waa kaasaa magaciisa haddii aad magaca soo barka gashatid ku geyn doonaa insha allahu tacaala hadduu ilaahay yiraahdo isbitaal nadaafadiisa iyo wixiisa dhan maxaa la dhaw dhammaystiran yihiin waaye midda kaleetoodu aad iyo aad ugu bagan waxay tahay emergency service uu leeyahay dabaqa shanaad oo ku yaala markaa tagtid wuxuu ku dhahay dhaqtaraha la socoto ma u baahan tahay mase emergency u baahan tahay marka haddii aad hooyo uur la tahay xanuun aad dareentid ama maxaa la dhahaa wax aad isku aragtid oo ka shakisid cunugaaga oo istiraahid iyo intuu dhib kusoo gaari lahaa istaal raadso istaalka maasha allah aad iyo aad u fiican yahay dhaqtarka aan la kulanana maasha allah dhaqtar English ku hadlayo ahay marka gabdhaha xataa luuqadda aan aqoonin wuu idin anfacaya dadka qaar arkaa dhahayo Masar English laguma hadlo war Masar maxaa la dhahaa luuqadii leeyihiin luuqadoodu waa carabi oo maxaa la dhahaa laakiin English way ku hadlaan broken baa iska caade marka haddii aad tagtid waa isfahmaysiin shan farood leh isma fahmi wayso lama dhaho marka qaybtaas hadda idinku qabanaya aan tagnay qaybtaas markaan tagnana waxaan la ku dhahay waxaa aadiin qaybta kore oo 5 floor kana la dhahay waan tagnay maasha allah waa u jeedaan istaalkii qaybtii oo kombiyuutarkii waxaan galnay kombiyuutar casri ah haysteen wallahi maasha allah tabaarakallah habeenkaas emergency ka tagnay lacagtan la ka qaaday 450 gini ayay ahayd maasha allah tabaarakallah waxayna soo dhameysanay maxaa la dhahaa waan soo baxnay inuu everything okay yihiin maasha allah baa loo soo sheegay mar kale waxaa idin ka codsanaa baa inay igu duceysaan insha allah tacaala tuu ilaahay yiraahdo inuu ilaahay caafimaad siiyo way caafimaad qabtaa ayadii beebigeeda wax walbaba waa okay ana la dhahay marka inuu ilaahay subxaana watacaala u ziyaadiyo xamligana ilaahay subxaana watacaala u fududeeyo bisalaamo inuu ilaahay ku gaarsiiyo 9 bil oo beebigeedii ayadoo caafimaad qaba korkiisa saartaan usoo duceeya insha allahu tacaala qof walba oo qof walaalkiisa u duceeyana malaga walaka mid lagu dhahayo marka waa ujeedaan meesha ilmaha beebiyaasha cuntada la siiyo farmashiyaha soo gala marka farmashiya aad u weyn oo ahay beebiyaasha gabdha in badan soo weydiiyaan arka cuntada beebiga la siiyo Masar ma ka helayaa soy milk ma ka helayaa war wax walbo Masar waa ka helaysaa maasha allah tabaarakallah inkastoo gabdhaheena Soomaaliyeed hadeertaan ay u bateenba gabdho maanta 12 cuntada kaliya ka fakaro war meesha aad tagtid cuntadeeda ayaanta u horeyso haday si walba macaan u taalama qabsanaysid oo dhadhanka aa ka imaata afkaada ku jiro laakiin haddii ayaan joogtid si fiican oo la qabsanaysaa midda labaad dadka qaar jismiga ka soo guuraan laakiin qalbiga dhulka gaaladay ka joogaan marka runta laga hadlaan runta ayagu imaanaysan
qalbigeedii oo dhan dhulka gaalada joogaa maanta dhan waxay ku dhahaysaa wax hebel ku fiicneed meel hebel wax hebel ku fiicneed war waxaa ka soo tagtay meeshaas niyadaada ka jaro awlaadaadana ay kaa maqlin wax hebel ku fiicneed wallaahi hooyo dhahayso ilama aha inay muddo badan sii joogayso maaha Masar kaliya wadamada la tago dhan hooyooyinka u guure oo cuntadii meesha ka imaadeen iyo wixii meesha ku imaadeen ku haysteen maanta dhan ka hadlo ilmahooda xataa ayaga ay kiciyo adhoodna ku dhahay ilmiya iga diida marka cunugaaga oo adiga kaa maqlo maanta dhan inaad leedahay meel hebela fiicneed mataqaanaa cunugaaga maxaa diidaa inuu meeshaas gaalada jeclaado horta marka hore hooyooyinka dhaqan celis u baahan hooyooyinka inta badan Soomaaliya ku dhasheen kuna soo koreen in yar waaye in ay ama ku dhalatay qurbaha ama ayagoo yaryar tagtay kuwaasna hami uma hayaan markay meelahan imaadaan ama meel loo guuray ay tagaan wallahi inaan la maqashii karin gabdho badanaa jiro oo maxaa la dhahaa asxaabta Firdaws isku filan kamid oo janalkayga ku xiran oo gabdho aad iyo aad u yaryar ah oo ama ku dhashay ama ku soo koray qurbaha haddana niyadooda marnaba ma sheegto laakiin waxa sheega waxaa waaye dadka ayagu waaweyn tagay mataqaanaa oo maanta 12 ah moodidba inay nolol kale aysan dunida ka jirin noloshii dhulka gaalada ka yimaadeen moogiye hadaa meel ka soo guurtay niyadaada ka wada saar waxay ku fiicneed waxay ku xumeed waa ka soo tagtay nolosha khalaas way dhamaatay nolol cusub soo gashay tan sida ula qabsaleed tan saa wax uga qabsaleed ilmahaaga si kuula qabsalaayeen taa imaatid looga baahan yahay laakiin heblow fiicna jiis fiican ayaa root fiican ayaa canja magaciisi fiican ayaa canjeelay muufa fiican ayaa no inta way yaalaan waxa uu lilma lahan laakiin dhadhankaas kala duwan hadadka cuntooyinka waxay u ooyaan oo magaciisiga oo meelaha ka imaadeen laakiin ani wallahi hadda markii aan tagay January aan ku laabtay gabadheeda dhakhtarkii cuntada London oo dhan way anfici wayse kulligood tasti kale ila lahayd dhadhan ila meeshaan marka waa cuntadii inta la qabsaday daas waa keentay inaan cuntada UK qaraari la noqoto oo cuni waayo marka meesha hadaa imaatid ayaanta ugu horeyso maxaa la dhahaa carabkaaga tiyo leesta laakiin wuu la qabsanaa insha Allah taala doo Ilaahay yiraahdo inkasta gabdhaha qaar marka imaadaan ma sha Allah ku enjoy garayaan ku faraxsan yihiin inuu Ilaahay dhul gaalo ka soo waday adinkaas ay maqlaayaan nimcooyinkaas ay haystaan farxad weyn ee la tahay oo meel ka imaadeen cuntadoodii ay raadin laakiin cunugayga jecel cunugayga hadaa waxaas maanta cunugaaga iska maqashiisid wallahi wiligiis inuu saniyadiisa dhul gaalo ka saareenin hooy waa ka soo guurnay khalaas waxbarasho haday tahay iyo deegaan haday tahay meeshaan aan soo degnay kaas waa dhamaatay noloshiisa niyadiina horta ka saara kaanahu inaada aqoon ignore dhulkaas gaala ka imaateen inkira asiga dhan niyadiina dhanna ka saara waa la qabsanaysaa meesha ku nooshiin laakiin dad intana degan xagana degan mataqaanaa wallahi sareexa walaalayaal aan runta idin sheegayaa lama qabsanaysid ilmahaagana iskaga hor amaanin maanta dhan dhul gaala ka imaatay dhulkaas dhul gaalo ahay anaka iskama lahaynin inkastoo kanba aanan lahaynin kan laakiin temporary ku joognayo waxaan ka baranaynaa haddii maanta Soomaaliya amni buuxa ay noqoto hooy waa u goorinaa ilmahaaga inaa u sheegtid gabdhaha fursadda dahabiga Ilaahay siiyo wadankooda tagay waxaan dhihi lahay ku adkaysta wadankiina oo jooga oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tala saarta qaali waaye sida aan maqlay Soomaaliya xoogay laakiin insha Allah tacaala Ilaahay waxaan ka baryaynaa wadankeena inuu maxaa la dhahaa oo nooga dhigo wadan amni ah maciishadiisa dhulka taalo waxbarashadiisa caafimaadkiisa ay tayo leeyihiin Ilaahay subxaanahu wa tacaala Allah nooga dhigo marka gabdho walwalka iska daaya adduunyadan wax yar waa wallahi waa laga tagayaa waxa ay leedahay faa'iido ma lahan reer Falastiin bis kuwaana qaata haddii aad rabtid waana qaadasho reer Falastiin fiirsada niyoosiyadooda ilmahooda sida loo galaayo waxa saas u galaayo waa gaalada ka imaanay Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiinayaa reer Falastiin inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nasrigiisa u soo dejiyo ilmahaas yararka oo agoontoobay oo hooyooyinkoodu xismeen
oo maanta maxaa la dhahaa ay xaaladii ku sugayn ilaahow haddana qanaacaday haystaan waa aragta marka nimcadan ilaahay na sii waa la isweydiinaa la tus'aluna yowmaidin cani naciim war ilaahay aan ku shukrino oo ilaahay aan u noqono oo ilaahay subxaanahu watacaala aan tala saarano waa idin soo dhaweyna asalaamu calaykum